waxaa run ahaantii aad iyo aad aan ugu xunnahay walaalaheena oo dad islaam ah oo dad Soomaali ah run ahaantii oo durdurna ay tahay meel lagu daydo oo run ahaantii muxuu ahaa YouTube-leyda macallin u ahayd sidaas ay tahayna hadda hawada way ka maqan tahay waxaa ku jira gudoomiye Gulfaan soo dhawaad gudoomiye xaaladaada ka waran ما سنت حد قدر بها هذه دمان مجتمع كلن جنالك وين ما سن حاليا مركه هره وانا سلامي هذا انا ودوهاي من دلباد اونغا حالدي runtii shakhsiyan aadan wanaagsanahay sida aad YouTube ka soo dhigtay dhamaan YouTube leeda Muqdisho iyo shacabka qaasatan arrimaha media u dhundulana ay hadal hayaan waxa nagu dhacday runtii arin filim waan nagu noqotay oo dadka inta badan marqaati ka yihiin oo in YouTube ka media group la jabsiga dadka si xiriir loo qaadan karaan abaha laakiin dhibaatada nagu dhacday wax maxaan ku raada annaga dhaxleen ah un bay ahayd wax YouTube leeda lagu sameeyay ama shirkadda YouTube lagu sameeyay ama dad kale oo hackers lagu sameeyay ma aha wax xubin shirkadda shaqaalaha ka mid ahay oo xaray shirkadda ay baahisay muuqaal ah inuu shirkadda iskaga tagay oo nidaamyo la yiraahdo irkaas oo passwordki maxaan ku raada shirkadda xubin muhiim ka ahay ayaa runtii badashay passwordka remove gareeyay YouTube ka runtii maxaladaas runtii xanuunka badan leh jariimada ah qof kale nooma geysan xubinka dadka shaqaalaha noo geystay sidaasina waxa u dhacay abaha maxamed muuse Gulfaan gudoomiye horta waxa hadda idin taalo shaqo weyn oo waxaan dareemaa inaad ku mashquulsan tihiin ruuxantii YouTube-kiini hawada laga saar horta walaalo adduunka Ilaahay waxa ugu xun qofka inta la soo dhaweeyo dhabarka ka toogto oo walaalka dhigato oo filaynin idinka ma dareemin miya qofka dhagarta intaas la eg idin damacsan oo rabo in uu burburiyo wixii oo dhan waa la kaftamaa waa la farka ciyaaraa wax walba la isdhahaa ragabaaliyaa waa la heshiyaa laakiin dhagarta intaas la eg qofka idin damacsanaay gudoomiye sidee ku fahmi weyseen runtii dhagartu sida cadawga markaa ka qaadano waa wax qurux badan laakiin cadawga markaa dadka aan xirinayna xanuunkeeda leedahay aad iyo aad xubnaha shaqaalaha maasan oo kamid ah oo howlgallada kale ah oo aan la aqoonin ma shirkadda laga sameynayo leeyahay kamerada haysta wax kale ka hadlin shirkadda tele ku leeyihiin maadaama shirkad guud ay tahay oo bulshada madariso xubin fircoon oo ka ahaa yarkana jariimada sameeyay nidaamiye muuqaalada duubi jiray qaarkoodna markii dhowr muuqaal yihiin asaab publish garay jiray oo computer haysto oo dhankiisa ayuu editing ka sameeyay marka sabab aan ku ogaan karnana ma hayno maxaan ku iraahdaa qofkii oo jariimada sababtoo qof lagu dhaxlo hooyga shirkadda deganaay la cuntinay la noolaay saaxiib la ahay marka way adag tahay qof aadan maxaan ku iraahdaa ka filanin hadduu number ku geysto taas wayna hadda kadib 10 ka qaadata oo qof kasta shirkadda shaqaaleed naqanayo aad baaswirka ka ilaalisa laakiin ka ilaalisa hadda kadib naqanaysa laakiin hadda wixii inta ka dambeysay kuma fikirinin qof naga mid oo nala saxdo oo nala cunteeyo inuu hadda khilaaf yar oo dhaco xalkeeda la gaari karo inuu midda sameeynaayo masalada kale oo dad media abaha wana ku watay dad kala duwan ka tago asiga ku ma aha qaarkood YouTube loo aansanaatay furtan balbalaarka dhammaan dadkaas markay shaqada ka tageen shaqada si shaqeynaysi waxa YouTube loo Muqdisho maanta joogta 70% dadka aragtida ku lahayn qayb ka adigoo marqaatiya ka in qof kasto haduu naga baxay haduu si gaar ah bareebad u adeeganayo YouTube sameysanayo inuu asiga maxaan ku raada YouTube ka sameysto oo sida ku caanama qalo waxaan sameeyay marka aan YouTube leeda nala shaqeysan mar xindabkeena ka baxaan baaswirka badal jirnay samarkii baad xal waas dhiganay oo xal naftiin ku datiin baaswirka la badalo laakiin wixii dhacay kulleeto waa wax ka weyn oo iska qoran marka anigana waa ilo xasan sanay ma xasuusin marka waagi waa bariisana oo baan ogaanay YouTube kana gacanta uu ka baxay oo qolo kale runtii heesato qolada kalena kuma adeeganayso oo xaasnimada sameeysan waxa kamid ah way remove garay YouTube-kiya dalladii ku qabteen macnaha وحاسنمو ماشي يقول سريسو واي قفك أسوأ أود يوتيوب كاستعمال يوتيوب كهستو هذا نوع يوزر يوتيوب كان هايسن جريمي كل تو نكسر نقول سمي كل تو ما أنت والس أركي والوتي وحلا ورمحسوس سمي سنة دامية وكوك اللي في أسيه
xasanto muqdisho arkeen oo ka dhigo foreestay wixii aniga ma aha anaga dad waaweyn garaadkeena u malayn ma in daqiiqan nolol sheego sababtay nabarkii xanuunka meesha nooga hayna maansan ma YouTube kana ma aha waa qof aniga uu dhax noolaa ciwaankiina hay kuleeto nidaamkii wadanka system dawladda leeyahay systemkaas oo marnay kuleeto haddana kuleeto berito maxkamadda laadina dawlaha yiraahdo waka insha Allah kiiska marka waxaan rabaa walaalkiiyo horta aad ugu xunnahay qof muslim oo walaalka dhibkiisa horta meesha wax lagu farxo ma aha iska dhaaf ina adiga dhibaateeso oo berika maalina waa lagu ciqaaba intaas markii laga soo tago waxa leediin taageero oo 100% waxa jira YouTube lay oo aniga aan kamid ahay oo runaantii challenge garees maxaa laga wada horta erigaas ii fasir walaalo challenge runtii waxa loo jeedo amba dadku ay u fahansiin kulleeto waa tartan marka walaalkay in durdur media waa YouTube oo fac weyn YouTube-da ugu horeeyay oo kamid yahay dad ayaa waxay u arkaan marka anigoo abaha hadda maanta marka iska soo qaado aan durdur media cadow ku ahay meeshaan waxaa jirta in wax la dhaho macaamiil iyo views iyo wax saas in lagu daawado qofka inuu rabo marka hadii YouTube-ki oo kale misaal oo hadda gudoomiye Gulfaan oo durdur media madaxa ka tahay aniga aan challenge gareeyo oo barnaamijyadooda aan sharaxo oo waxaas macnaha aniga aan ka wada dadaan in dad i fiirsadaan ma khaladaan ku leeyahay mise waa ku saxsanahay maasanta abaha challenge amba waxyaabaha la yiraahdo fiirsaysi wax ku gaar adiga ma aha wax YouTube-da adduunka ay ka sameeyeen gaali muslim jirta waa hadee dhaqanka Soomaalida wuxuu yahay hadee masiibo dhacdo masiibadaas waxa loo aaneynaya dadkii ay iskhilaafsanayeen wax dar alla ku madaxda wax leeyahay abaha baa ka dambeeyay dad kala duwan waxa arkay marka laga soo tago adiga oo gooran fagay durdur media aad dhor muqaalad iska jawaabteen YouTube lay kale oo naftigooda maxaan ku raadaan mar dhow farxin xun naga sameeyay ay dadka komadada ku soo qorayeen YouTube lay muqdisho ay cadow kale durdur media qof walba uu malayn kara aniga naftiga markii la YouTube kala jabsado waxaas lahay أنا نقول إن بس ماشي جد كوه وصل دعوة تذكر من جالن جرينا ما ترتق الله قد حقيقي إن مصيبة كتبان بيان لكن مرجع حصل اسمه قلنا وقانا دبعت هذا ماشي أصل كذي أو حاجة يعني كم من حبنانته إنه قف كلا مش كذي يوتيوب كتها يوتيوب كلا يعني مصيبة دوية قف عنا جماعة كذا أي شيء كذا نكشقين هاي ما خبطة ولا ها وعادي أما يوتيوب كستا بلي ودمان كليته هذا عمر كليته ناس قانوا يوتيوب على جوا ذاتك بقى كوار كان جالنجي إنه أملي عمال لكن ناشكله عادي لا صاحبنا كنا نسوي الشقين وأمرك أملين ما يروح حمانين يتا لكن ذاتك عن نسكي أقولنا لقيها بدرين نوع عسين قطع واي بلشوين تا ولا لها شرفت له دردور ميديا هبين إيماني وهلناي دفاع هذا اللي قدري ما سوشيال ميديا maxaa ku qancinay maxaa leedahay maxaa ugu baaqay waxaan u baaqayaa dhammaan ku maanta ku durdur meesha ku dhammaan tulada Soomaaliya ku qoyl waxaan leeyahay aadan idinkaga mahadcelinayaa sida walaaca nooga muujiseen runtii siyaabo kala duwan runtii aniga naftiga dadka doontayaasha soo wacay iyadoo ka hadlaya kiiskaas runtii aadan kaga mahadcelinaa runtii durmeel runtii bulshada ka timaaday iyadoo u timaaday waana soo laaban doontaa haddii ilaahay yiraahdo kula hadda howlaas oo maxaan kula cadaan la kaashanay ilaa isbuucan koleetaba uu bay dhaqan doonta kole hadii faraha laga taagana koleeto ujeedku waa durdur media ciwaan ma ahayd dadka durdur media ka shaqeeya la bartay wayna soo laaban doontaa haddii ilaahay yiraahdo waxaa kaloo jira baawa kaga faa'iideysanaa YouTube la kala sameeyo durdur media oo muuqaalo badan soo galiyo aniga naftiga muuqaal kamid muuqaal soo galiyaa oo Gulfaan YouTube kaana si kubal gaar u gurnay subscribe dhaa kubadaha arkay marka shacabka waxa kaga digaya inay ka waantoobaan durdur media ilaa isbuuc kadib ay go'aan ama YouTube khasnaasan doonta ama kadib salaamad doonta laakiin waxaan kaloo hada durdur media YouTube ay wareegayo wax shirkadii shaqaaleedu shaqo ku leeyihiin maaha waxaan u mahadcelinayaa xubnaha ka tirsan maansan iyo dhammaan qof walba Soomaaliyeed oo walaac nala muujiyay waan idinka qabnaa qof walba oo maanta YouTube leeyahay ama gudaha dibadda ahaaday muuqaalada soo duwa dhamaantooda daawanay qof kasta durdur media wuxuu gashto awaalku gashto ayuu ku lahaana haddii ilaahay yiraahdo ugu dambeyn walaalkii qalbiga Ilaah baa og dadkan walaalo waay Soomaali guud ahaan horta masiibo ku habsatay gudoomiye Gulfaan
waxaan ognahay meel kasta oo culummada inay dacwo ka taagan tahay waxbarashada inay dacwo ka taagan tahay dariska inay isku dhegan yihiin youtube-kii oo social media dhalinyarada saaxiib ahaa ee shalay is yaqaaneen yaraantooda maanta inay isku dhegan yihiin see loogu gudbi karaa oo loo heli karaa dad adduunka la tartamo oo walaalo ah see loo heli karaa runtii siyaabo kala duwan ayaa loo heli karaa in dadku isku cadaalfiyoobaan annaga dhaqankeen iyo wax walba horta nidaam walba waa ku cusubnaa waxaan youtube-ka la yidhaahdo wax muddo soo tiri waayo laakiin soomaalidana gaar ahaan dadka muqdisho ku nool iyo youtube-lada kale oo caalamka koletaba ugaarsiga kama dhexeeyo keliya dadka xamar joog waxaa laga yaaba markii la arko maasan iyo gudur media isku jawaabayo dadka inay u qaataan xumaan laakiin caqabadaha adduunyada dhamsaas oo kale challenge uu ka dhexeeyaa dadku way isqabsadaan laakiin waxaa loo gudbi karaa waxay tahay in maxaan ku radaa xamar si guud loo wada hadlo war waxaan markay imaadaan wixii markay wax tago yihiin oo xanuun keeni karo in laga wada munaashaqoodo la isliirigeliyo youtube-lada tusaale Malaysia in badan Soomaaliya jirto youtube-lada way iscaabeen iskuma dhigno laakiin cudurka hadda maanta meesha u soo guur waxay dadka xamar joogo aan soo alfiyoobeen marka anu waxaan isleeyahay bal kulli weyn hala qabto youtube-daas ugu yimaadaano hal laga wada munaashaqoodo maadaama youtube-ka taageero uu leeyahay marka taageerayaasha walbana waxaa loo baahan yahay weji qurux badan loo hortago aan laga faa'iideysan dhacdooyinka dhacay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaalida haysto waxa kamid ah maansana oo abaha halqad ka dhacay afkiisa ciwaan laga sameeyna abaha oo qad ku dhacay leeyahay xastaba qad ka dhacay ciwaan laga sameeyna marka dhibaato joogtada war culimadii systemka dawladnimada ahay fanaaniintii qolo kasta qaladaha ka dhacay waxa waa bidixaad laakiin qaladaadka in lagu ciqaabo ciwaan laga sameeyo aan dhaqan nooc dana xirxama dhaqankaas in la joojiyo la isku yimaado kadibna laga wada munaashaqoodo wanaag iyo daqiiq loo socdo ayaan ku baaqayaa wayna dhacaysa calafiyada maxaa yeelay aniga waxaan aaminsannahay xamarka iyo dhalinyarada muqdisho jooga dhammaan saaxiibadii inuu maxaan ku wada fikirkooda hoos u wanaagsan yahay laakiin challenge iyo mujtamaca kala xandaabsanayo taageerayaashu in lagu murziyo taasna qof kasta wanaagiisa iyo qiimkiisa ku heli karaa hal isku yimaada oran lahay kulan weyn waa la qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo oo maanta marqaati ka noqonayso marxadda markii loo gudbano la isku marxabeynaayo qof kasta wanaagiisa iyo nidaamkiisa iyo dadka shaqeynaya hadduu ilaahay yiraahdo waana maalgelinayna dhammaan maanta iyo taageerayaasha ku xiran si gaar ah amaal kaga dadka media maadaama aad dadkii ugu horeeyay muuqaalka soo duuba ka xumaadaan waxaan dhaantay youtube kale oo caasimada ku nool oo dowlad cadeynay marka ku dowlad cadeynay oo walaalaheen oo u fahmay jabkeena inay natiijo ka helayaan dadka walaaca noo muujiyo qurbaha ku noolaadaan ama gudaha joogaan iyagana oo ma celinaya dhammaan mujtamaca ku horeeyay dadka media waxaa la yaabaa soo noqon doona hadduu ilaahay yiraahdo guuli goonima urujeeda insha Allah walaalkay gudoomiye Gulfaan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan ku leenahay guul ayaan idin rajeynayaa insha Allah biidnaa kariim silmada guul ayaan ku rajeynaa baha waa mahadsan waxa sahay gudoomiye Maxamed Muuse Gulfaan Gulfaan anaga yaraanteena saaxiib aheen runaantii wariyo ahay anigana majaajiliistan ahay muddo dheer aan isnoqooni kadibna dibadda u aaday durdur media fikirka ugu weyn qofka iska leh waay walaalkii Xasan Toobna waxaan leeyahay qalbiga Allah u dejiyo walaalaha sharafta leh xumaan u fahmayay anaga challenge-geena oo dad is yaqaanaan nahay waa iska baashaal waa kaftan laakiin waxyaabaha kale oo qof hawada laga saarayo iyo qof oo cirdigiisa iyo sharaftiisa la baabi'inayo taas challenge ma noqoto waxaan leeyahay qof walba oo dhibkaas u geysata durdur ha ka waantoodo si alla sida ugu fudud oo xaqooda ay ugu celi kartaan haddii ay celi kartaan YouTube aqoon saas uma lihi majaajiliista ahay ha u celiso intii barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono waxay naga ahayd taageerayaasha durdur media in aan u soo bandhigno xaaladda meesha ay maraysa iyo maansan waa maasantihiin intii barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono waxaan leenahay durdur media taageerayaasha iyo maansan baguul fadlan taageerayaashayda subscribe daha maansan si aad muuqaalo idin xiiso geliyo